waxa jira wadankeena dad dawarsiga aad iyo aad ama wax weydiisadkoodu badan yahay oo dadka la yiraahdo Oromada ama Itoobiya inaga yimid dadkaas colaad wadankoodii ka soo kaxayso inoo keentay ma jirto baahi wadankoodii ka jirta oo inoo keentay ma jirto bal inaga ina quudiyayna iyaga bayna ku daba nool nahayo khudaarta iyo caanaha iyo halkaas inooga yimaadaan haddii maalin qora la xidho xuduudda weydinka arkay xabada tamaandhada intii lagu gaadho dadkaasi saddex sifo oo miskiin aan u lahayn bay leeyihiin marka koowaad lacagta iyo raashinka labadaba way qaataan oo dadkana dukaamada iyo meheradaha iyo suuqagana lacagta ay ka goraan xaafadahana cunada ay ka goraan waa qodobka koowaad qodobka labaad dad cibaadaysto ahlu cibaado amaaha masaajidada way hor fadhiyaa waa ku soo dhaafaysaa ku sii dhaafaysaa marka saddexaad boqolkiiba 90 in ka badan muslimiinba ma aha imaamada cas iyo khamiiska uska gale oo wax loo dhiibo weey oo aanay waxa weeyaan islaamnimo iyo diinimo mu xidhin laba kalmadood baana la baraa salaamu calaykum iyo liibaan iyadoo dhibtaasi naga haysato ba waxa aan ogaaday dabagal badan baan ku sameeyay waxaan soo ogaaday inay dad wadanka u dhashay keenaanba oo ay ku shaqaystaan oo lacagta ay percentage ku leeyihiin saadkan ay haystaan nin baa iskale wadanka u dhashay 30 kun buu kaga kireeyaa waxa ugu soo dhacay iyagu garan maayaan wixii loo dhiibay bay ka qaadanayaan wala doofis badankoodu way isla xaatiraan mana la xad laa kuwa indhoolaha ee la hagaya ma indhala waxaan u soo taagnaa mid indhala aan ku mataliyo ma indhala oo mid yar uu wado ba meherad aan ku jiray baa wuxuu ii sheegay inaan kii lahaa nigaas ma indhala buu maxaad ku cadeynaysaa baan ku maxaad ku garat wuxuu yiri ka yare wada halkan hortaydu ku garaacay maalin dhawey waa kala qabtay buu war maxaad kugu dilay aad ku samaysay wuxuu yiri wuxuu igu leeyahay meheradan aan soo dhaafnay maxaad ii dhaafisay oo waxbu arkaya haa arkaya buu الباب وقرشيستي الباب هدي لا دافلي دغتو كدفنay ilma yarooda lad waxa u fiirsada billahi alaykum ma lugala biraha halkan xisbiga laga kareeya ma lugala waa waxa soo taabtay anigu ma wax la iga sheekeeyay waa mujarrad dadkaasi hooy nagama kareystaan oo ama jaga xun oo banaano mid dayacani uu leeyahay bay buul ka dhisan ilaaliyaan amaba buulasha qaxoontiyada meelaha looga dhisay galaan hooy nagama kireystaan hunguri nagama iibsadaan oo koon cunadii magaalada ka guraya iyo xaafadaha hu nagama iibsadaan hu mara iyo ka midna bay nagama iibsadaan niman hunguri doonayn oon hu doonayn oon hooy saddexda midna baan kugu tarayn oo xataa calaqal wuxuu ka qaaday waxba aanay kaaga soo noqonayn haysadkiisu wuxuu faa'iido leeyahay dawladda iyo dadka waa la weydiinaya waxaan soo ogaaday sariflayaasha markaan wariis la yeeshay waxay ii sheegeen inay sarifaan maalin walba ruux kasta oo Oromiyo wuxuu sarifaa inta u dhaxaysa 300 bir ilaa 500 bir halka 100 bir waa 18 kun oo shilin laana haddaad isku celiso qofkii 100 kun oo laana soo gala beerayoom qofku soo galay muwaadinki waa naadir qof soo gala muwaadin idan lacagtan ay midaydeenayna dhex wareegaysay waa tan baxaysa way baxaysaa kunka la guraya uu baxaya la kunka haduu dib u soo noqdo macnuu sameyn la ma soo noqonay la doofirs inta waxaad raacisaa dhaqan xumida habla yar raacan baarsan baad arkaysaa shan jiidaya ila la cid ka dhashay meel ku dhalan lama garanayo waxay sheegeen dad xoogayaali caruurta laftigooda waa laga kireeyaa bidhadeen xagaas ka soo kireystaan ilmaha yar percentage buu leeyahay lacagtan uu qaadanayo ninkan Oromadii ilmahan percentage buu ku leeyahay waxaad inta ku sii dartaa dhaqan xumida kale xanuunada zinada fasaadka khamriga xashiishada abkay qurun oo dhan hooy bay u yihiin waxa qodobka lixaad ah ma tira koobna di dawladda la weydiiyay misaa soo galo Oromo dalka maalintii ma sheegi karaan boqolaal maalin walba qaar niyo cusub aad ku arkaysaa wadooyinka
wadooyinkii laga mari kari maayo, masaajidadii laga geli kari maayo, guryihii laga fadhiyi kari maayo. waa qof soo shaqo tegay. miskiinka waxa eriya allah kariim haddaad tira iska tegaya ma tegaya isagu shantaad meel ku fadhidaanba mid buu dul istaagaya, maxaa yeelay percentage buu ku xisaabtamaya yawmi ah. waxaan waraysanay anigii nin kale wadaadi mid yar, waxaan ku nidhi imsaatii carruurta 5 baan nahay buuli iyo hooyaday aabahay. maalintii maxaa kuu qorshaysan? 10,000 shilin buuli. 10,000 shilin maalintii haddaan keeni waayo guriga hooyan maayo, ma tegaya buuli. warumada noocaasihi waajibka koowaad dawladdu saaray, wasaaradaheedu saaray u xil saaran dadkan iyo bulshadan ay mas'uulka ka yihiin. waajibka labaadna wuxuu saaray yahay bulshada qaybaheeda kala duwan, hadday culimo tahay, hadday ganacsato tahay, hadday wax garad tahay, hadday madax dhaqameed tahay. innagaa soo waaridayna oo soo gelinayna. qodobka toddobaad wuxuu yahay wax allaale wixii shaqo hoose ahaa ee dadkani qaban jiray way la wareegeen. hadduu ra'iis la yahay, hadduu baalash yahay, hadduu yahay maaragtay baabuur la maydho, weliba way ku dilayaan ka muwaadinka soo dhex gala, dhegta dabadeeda ku dhufanayaan, qof biyo ka marmayaan. dalka waxa ilaashada dadka ku dhaqan baa dalka ilaashada. dawladdu waa hormoodu, waa hor socod, laakiin muwaadinka dalka da ilaashada. inagu masaakiin waxayna biday, anigu kuma khudbadaynayo area ma lihi, laakiin inuu miskiin yahay in la xaqiijiyaa u baahan arrin qoto dheer iyo baaritaan badan. miskiin maaha baan soo taabtay anigu, kuwa halkaa joogaa 99% maaha masaakiin, oo wada beeraley wey. markii alan ka tagaana nin soo degay oo California ka yimid iyo Washington ayuu ka dhigay, baashu soo ururiyay. ninka dheelay halkaa xawilaya 500 bir maalin 10kii cisho waxa weeyaan waa 5,000 bir. bishii waa imisa 15,000 bir wey. 15,000 bir ninka beeramood xawilaya Ethiopia gudaheeda kama helay wax walba sameeyo. horta badan oo masaakiina oo inoo garanayno ehelkeena iyo qaraabadeena jaarkeena ah. waxa laga yaabaa nin wala halkaa fadhiyo khudbadeeda dhageysanayaba in jaar badan oo uu leeyahay aanay dabka shidan.